goortan duca qabayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena Somaliland Digest oo ah ka dhabaal walba dhacdadii taagan aanu idinkula wadaagno. barnaamijkeenan waxaa igu weheliya saaxiibkeen siyaasiga Cabdirashiid Xuseen Yuusuf oo loo garan og yahay Cabdirashiid Gayle. Cabdirashiid Gayle waa nin siyaasi ah, Somaliland Digestna u ah mustambeedka odayaasha iyo siyaasiyiinta aanu kula noqnoqonno hadba wixii taagan. marka Cabdirashiid wuxuu naga caawiyaa in uu noo iftiimiyo amaba inoo wada iftiimiyo hadba qodobada aanu jecelahay in aanu idin qeexno. Cabdirashiid Xuseen, ku soo dhawow hoygaaga. waa ku salaamayaa, waana dhowahay. aad iyo aad baad u mahadsantahay Mr. Saciid. waxa Cabdirashiidow maalmahan dambe laysla dhex marayay xeer la sheegay in la hor keenayo golaha wakiilada Somaliland. xeerkaasi ugu horeyn bal wuxuu yahay iyo wuxuu ciddu ku wajahan yahay iyo cidda wadda, haddaad warbixin aad naga siisid. waad mahadsantahay Saciid. waa xeerkaasi u jiraa hadda la sheegayo. marka hore waxaan doonayaa inaan laba qodob ka tilmaamo. xeerkaasi marka hore waa xeer laga soo minguuriyey waddan kale oo aan dimuqraadiyad ku abtirsan, oo aynu totally kala duwannahay weeyaan. laba, sida xoguhu tilmaamayaan, hindise sharciyeedkan tala kuma laha stakeholderskii ama dadkii la doonayey inay sharcigan ku wada shaqeeyaan. si guud haddaynu u tilmaanno, waqti badan buu inaga qaadanaya haddaynu sii dhex gallo, laakiin waxaan ku soo koobayaa xeerkaasi si guud waa xeer awooddii komishanka doorashooyinku ay lahaayeen dhinac kasta ku ururinaya guddoomiyaha guddida doorashooyinka. waxa kale oo qayb ka mida uu ku ururinayaa, uu sheegayaa agaasime iyadu soo magacaabayso oo isaguna awood weyn ku leh dhinaca howlsocodsiinta arrimaha doorashooyinka. marka xeerku ama hindise sharciyeedkani labadaa qof ama labadaa xubnood ayuu ku ururinayaa awooddii komishanka doorashooyinku u lahaa. marka waa sidaa xeerkan maxaa khasaare ah ee uu yeelan karaa adiga kaaga muuqda? maxaase faa'iido ah ee siyaasiyiinta iyo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee dabada ka riixaya ay ka dhex arkeen ay u wadaan? waa su-aal wanaagsan. horta hindiye sharciyeedkani waxa uu sida aan sheegay awoodda ku soo ururinaya, hadday tahay maamulkii, maarayntii, budgetkii, go'aamadii, shirarkii, heshiisyadii, wax walba wuxuu ku ururinayaa guddoomiyaha komishanka iyo agaasime ay madaxtooyadu soo magacaabayso oo awood badan. sidaa daraaddeed wax faa'iidaa oo qaranka jamhuuriyadda Somaliland ugu jiraa ma jiraan. sababtoo ah hindise sharciyeedkani marka hore waxa uu khilaaf hor leh gelinayaa dalka iyo dadka iyo guddida doorashooyinka lafteeda ayuu khilaaf ka dhex abuurayaa. marka labaad wuxuu naafaynayaa jiritaankii guddida doorashooyinka, oo mar haddii la yidhi xubin awood badan bay oo agaasimo ah oo howl maalmeedkii iyo shaqadiisii oo dhan xeerka lagu qeexay iyo awooddiisii la leeyahayna madaxtooyadaa soo magacaabaysa, arrintaasi khatar ku tahay jiritaanka guddida doorashooyinka iyo in madaxtooyadii iyo guddidii garsoorayaashii dimuqraadiyadda Somaliland inay isku milmaan. marka wuxuu inoo jihaynayaa xeerkani dhinacii dictatoriyadda, dhinacii kelitalisnimada ayuu inoo jihaynaya. marka wax faa'iida oo ku jira
totally ma jirto baahi loo qabo haddana ma taalo xeerkan waxaa la hor keenayaa baarlamaanka golaha wakiilada somalilan haddaad isberber dhigtid golaha wakiilada maanta iyo golihii wakiilada ee waktigiisu dhammaaday siday kula eegyihiin walaal waxay ugu eegyihiin horta baarlamaankii hore muddo 15 sanaaba waddanka soo fadhiyey ummaddu aad iyo aad bay runtii uga cabanaysay wax uu qabtay oo weyn oo baarlamaankaasi la taaban karo ma jiro waa baarlamaanka markii ugu dambeysay ummadda reer somaliland bamka dhex dhigay ee xeerka aynu aragnay mushkiladiisa iyo khilaafka uu dalka geliyey inoo sii macmalay ilaa maanta aynu waxa weyn markaa waxba kamaynaa dhaxlin waxaynu laakiin filaynay baarlamaanka kale ee inoo imanaya sidii ka muuqatay shicaarkoodii inaynu helno baarlamaan ka duwan kii hore oo mar walba ku shaqeeya maslaxadda dadka midnimada wadajirka iyo ilaalinta dowladnimada shuruucda dalka oo aan qofna meel ugu xidhnaan marka waxaan filayaa weli wixii aynu ka rajaynaynay baarlamaanka cabdirashiid xeerkan wuxuu ku lug leeyahay sidaad sheegtay doorashooyinka oo ah doorashooyin muran siyaasi uu ka taagan yahay halka muranka doorashooyinka adiga cabdirashiid siyaasi ahaan muxuu kula eegyahay xalku muranka waxa weeyaan wuu iska cad yahay siciidow dalkeennu maanta xeerar iyo xeer commission iyo ururo iyo wax la mida uma baahna dalkeennu maanta wuxuu u baahan yahay isbeddel wuxuu u baahan yahay aragtidii hore ee lagu doortay xisbiga talada haya ee xukuumadda wakhtigeedu dhammaaday ee uu hogaaminayo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday muuse biixi cabdi aragtidii lagu doortay bulshadu way ku hungowday tacabkii la geliyey halkaa ummaddu way ku tacab khasaartay iyo codkii ay bixisay waxaynu u baahanay maanta dalkeennu mushkilad buu ku jiraa in la helo aragtida maanta lagu maamulayo ee lagu jaangoynayo maamulka iyo maaraynta nolosha bulshada aragti ay dadku u baahan yihiin dadku maanta isbeddel bay u baahan yihiin xalku waxa weeyaan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday inuu garowsado dalku halku ku socdo iyo tiimka ka agdhow dalka in doorasho la geliyo dalka in isbeddel ka dhaco haddii iyagu ay ku soo baxaanna oo dee bulshadu ay codka siisana dalka ay sii maamulaan oo sharciyad dalka ay ku joogaan haddii kalena ay u banneeyaan muwaadiniinta kale ee fikirka iyo talada wanaagsan la damacsan dadkooda iyo dalkooda inay horumar ku gaarsiiyaan dalka waa in doorasho ka dhacdo xal kale oo jira ma jira xalkaasna madaxweynaha ayuu ku jiraa xilkiisu dhammaaday ee weli xafiiska sii fadhiya ee sharci darrada ku fadhiya ayuu gacantiisa ku jiraa waayahay cabdirashiid xuseen yuusuf oo ah cabdirashiid gahayle siyaasigeenna aad iyo aad baad u mahadsan tahay mas-uul waan kaaga mahad celinaya kulanka aad mahadsan tahay mr siciid kulan wanaagsan oo dambe insha allah waayahay daawadayaal kaas wuxuu ahaa siyaasigeenna joogtada ah cabdirashiid gahayle fadlan waxaan idinka codsanaynaa in aad nala joogtaan nagu xidhnaataan si mar walba aanu idinla wadaagno dhacdooyinkii siyaasiga ee dalka somalilan ka jira inta kulanka xiga aynu ku kulmi doonana waxaanu idinkaga tegaynaa amaana allah